السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. si aad u noqoto hacker, network engineer ama cyber security expert waxa laga maarmaan ah culumtaasi barashadeeda inaad ka bilowdo course-ka loo yaqaano Network Plus, N+ ama networking. muuqaalkan waxa kugu wadaagi doonaa core concepts-ka Network Plus-ka ama qaybaha ugu muhiimsan ee tahay inaad si fiican u fahanto si aad barbilow wanaagsan ay kugu noqoto. haddii aan soo koobo qaybahaas waxa kamid ah ama qodobadaas waxa kamid ah network topology, network classification, OSI model, network equipment, physical transmission medium, wireless networking, communication protocols, DHCP, DNS iyo network security. haddii aan mid u faahfaahiyo qodobka ugu horeeya inaad fahanto u baahan tahay waxa weeyaan network topology. network topology-gu waa habka ay kombiyuutarada isugu xirmaan ama waa habka loo set-up gareeyo network. network topology-ga waxaa la isticmaalaa dhowr hab oo kala ah bus topology, ring topology, star topology iyo mesh topology. hababkan way ku kala duwan yihiin markay noqoto waqtiga lagu set-up gareynayo iyo cost-ka ku baxayaba. sidoo kale waxay ku kala duwan yihiin mustaqbalka riskiga iyo dhibaatooyinka ku iman kara. qodobka labaad oo ah network classification waxaad ku baranaysaa qaybaha loo qaybiyo networka. networka waxaa loo qaybiyaa 3 qaybood oo waaweyn oo kala ah LAN, MAN iyo WAN. LAN wuxuu u taagan yahay local area network, waana network xadidan isla markaana laga adeegsan karo ama lagu adeegsan karo hal dhisme. MAN ama metropolitan area network uu ka balaaran yahay LAN-ka isla markaana waxa weeyaan dhowr LAN oo isku tagay. tusaale, shirkad ayaa waxay magaalo ku leedahay dhowr xarumood oo kala duwan. xarumahaasi mid walba oo kamid ah waxay isticmaali doontaa local area network ayay isticmaali doontaa. xarun walba marka local area network ay isticmaasho xarumaha kala duwan si ay network u sameeyaan waxay isticmaali doonaan MAN area network. wide area network waanku uu ka balaaran yahay MAN-ka isla markaana tusaalaha ugu mudan ee WAN waxa weeyaan internetku waa kombiyuutarro daafaha caalamka yaala isla markaana uu ka dhaxeeyo network. qodobka saddexaad ama concept-ka saddexaad oo u baahan tahay inaad si fiican u fahanto waxa weeyaan OSI model. OSI modelka waxaa loo qaybiyaa 7 layer ama wuxuu ka kooban yahay 7 layer. marka ay laba kombiyuutar oo network ka dhaxeeyo ay data isku diraan, datadaas waxay mari doontaa 7daasi layer. 7da layer waxaa la kala yiraahdaa physical layer, data link layer, network layer, transport layer, session layer, presentation layer iyo application layer. qodobka afaraad ee tahay inaad si fiican u fahantaa waxa weeyaan network equipment. network equipment-ka waxaad ku baran doontaa qalabka loo adeegsado network-ga sida switch-ka, router-ka iyo hubka. qodobka shanaad ee u baahan tahay inaad si fiican u fahantaa waxa weeyaan physical transmission medium. physical transmission medium haddaan fahankeeda soo dhaweeyo waa kaybelada la isticmaalo. kaybeladana waxay noqon karaan copper cabling ama fiber optic cabling. qodobka lixaad ee u baahan tahay inaad si wacan u fahanto waxa weeyaan wireless networking. wireless networking-ku waa habka laba kombiyuutar in ka badan la isugu xiraayo iyadoo la adeegsanayo wireless, yacni iyadoo aan wax xariga la adeegsanayn. qodobka toddobaad communication protocols. waxaad ku baran doontaa protocollada noocyada ay u kala baxaan iyo mid walba waxa loo adeegsado. protocolladaas waxaa kamid ah TCP/IP, HTTPS oo website-yadu isticmaalaan, FTP iyo SMTP oo ay isticmaalaan electronic mail-ka ama emailada sida Gmail-ka iyo waxyaabaha la midka ah. qodobka sideedaad DHCP. DHCP waxay u taagan tahay ama loo soo gaabiyey Dynamic Host Configuration Protocol. waa habka loo maamulo internet protocolska ama IP addresses-ka. device walba si uu ugu xirmo network wuxuu u baahan yahay IP address. IP address-ka hadduu meesha ka baxana device-kaasi kuma xirmi karo ama laguma xiri karo network. DHCP-ga ayaad ku baran doontaa sida loo maamulo IP addresses-ka manually iyo automatically-ba. qodobka sagaalaad DNS. DNS waxay u taagan tahay domain name system. waxaad ku baranaysaa qodobkaasi waxa ay yihiin domain name-yadu iyo sida ay u isticmaalaan iyo sida kombiyuutarka uu fahmo. bini'aadamku waxay fahmaan xarfo halka kombiyuutarku uu fahmi karo kaliya nambaro. si bini'aadamkii kombiyuutarka isku fahmaan markaa waxaa la soo saaray system-kan loo yaqaano DNS. DNS-kana wax kala ma aha waxa weeyaan domain name-ka youtube.com. adigu markaad u taqaano si xarfaha oo youtube.com ah kombiyuutarku wuxuu fahmaa hab nambara oo la yiraahdo IP address. waayo wanaga kan soo sheekay device walba markuu network ku xirmaayo waa inuu yeesho IP address isaga u gaara. device-ka uu ku keydsan yahay domain name-ka aad access garanayso ama website-ka doonayso inaad booqato, server-ka uu ku keydsan yahay domain name-kiisa ayaa lagugu xiri doonaa. server-kaasina wuxuu leeyahay IP address. domain name-ka aad adigu codsanayso ee ah youtube.com, server-ka uu ku keydsan yahay wuxuu isticmaalaa IP address. IP address-kaasi waa nambaro. bini'aadankana way ku adag tahay in nambaradaasi ay xifdiyaan oo mar walba browser-ka ay ku qoraan. sidaas darteed ayaa loo soo saaray nidaamkan DNS-ka oo ah nidaam habkaasi IP address-ka loogu bedelayo magac si bini'aadanku markaa ay u fahmaan. DNS-kaasi ayaad ku baran doontaa domain names waxay yihiin qaabka kombiyuutarka uu u fahmo.
qodobka 10aad ama conceptiga 10aad waxaad ku baranaysaa network security. Network security-gu waa waxyaabaha la xiriira dhanka security-ga markay noqonayso si loo dhiso system ama network security. Conceptigaasi waxyaabo badan ayaad ku baran doontaa. waxyaabaha laga yaabo inaad ku barato ama aad ku arki doonto waxa kamid ah firewall, VPN iyo waxyaabo kale. oo marka network la dhiso naftiisa waxyaabo kale waxa jira sida authorization iyo authentication iyo waxyaabo kale badan oo la xiriira dhanka security-ga ayaad ku baran doontaa. koorsadan marka aad qaadato waxay kugu noqon doontaa barbilow wanaagsan haddii aad doonayso mustaqbalka inaad noqoto ethical hacker ama network engineer ama cyber security expert. cyber security-ga ama security-ga waa waxa ugu muhiimsan ee maanta loo baahan yahay caalamka guud ahaan. N+na waa halka aad ka bilaabi karto inaad fahamka wanaagsan kaga qaadan karto. koorsadan waxay leedahay shahaado caalami ah. shahaadadaasi oo ay bixiso koorsadan organization-ka soo diyaariyay oo loo yaqaano CompTIA certification. marka aad qaadato waxaad noqonaysaa qof caddayn buuxda u haysta inuu soo bartay network plus certification saad u qaadato waxaad ka qaadan kartaa CompTIA waxaad booqan kartaa informationka ku saabsan certificationka iyo wax walbana waxaad ka aqrin kartaa comptia.org. koorsadan shahaadadeedana aad qaadato qasab ma aha laakiin way ku fiicantahay inaad qaadato shahaadadeeda. koorsada marka aad dhamayso shahaadadeedana aad qaadato waxaad u gudbi kartaa koorsooyinka ama aad u gudbaysaa koorsooyinka sida CCNA iyo CCNB marka aad dhamayso qaybo badan ayay leedahay CCNB-du sida CCNB security iyo qaybo kale badan. waxa aad u sii dhawaanaysaa cilmigan qaybihiisii sare ee adeegsanaysa ahaa inaad noqoto cyber security expert ama aad noqoto ethical hacker. muuqaalkan oo maanta aan kaga hadlayay network plus-ka intaas ayaan kusoo koobayaa. muuqaalka xigeentan ku kulmayno sida iyo nabaday.